آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ujeedka kulankan maanta aan isugu nimidna wuxuu ahaa inaad heshaan xog ku saabsan barnaamijkii Guryasamo iclaamisay oo loogu talagalay inay ku bartaan gabdhaha gobolka Banaadir ku nool xirfadda kaamirada iyo habeynta muuqaalada maadaama inta badan gabdhaheenu ay aad ugu yar yihiin inay wax duubaan baahida ugu badanna mararka qaar iyagu ay qabaan ayaan ku talagalnay inaan uga faa'iideyno fursadan annagoo kaashanayna xarunta Sodma Somali Digital Media Academy iyo sidoo kale xarunta qalam ee ka shaqeysa horumarinta waxbarashada shaqooyinkeeduna ay kamid yihiin in ay laftirkeedu muuqaalana duubto filimana ay edit gareyso ay habayso haddaba gabdhahaygiyo haddii barnaamijkan alla idin qadaro aad barataan waa barnaamij faa'iido idinka idin leh laakiin waa goorma waa marka aad u martaan dariiqii sharciga ah ilaahay baneeyay subxaanahu wa tacaala waa markaad uga faa'iidaysataan jaanibka wanaagsan waa markaad uga maarataan rijaashii idin dhex boodaysay oo idin daba socotay oo kaamirada idinku daba waday oo hadba dhinac u jeefsa ku lahayd baad kaga maarmaysaa gabadha cilmigaas xambaartay marka gabadha cilmigaas xambaartay ee ayada waxaan la baray ee la yiri adigu booskii ninka intaa buuxisid duub waxaan maxaa laga rabaa amaano maxaa laga rabaa gabadhaas amaano culus ayaa saaran idan amaanada ha la xifdiyo amaanada la xifdinayana wixii lagu dhibtayna xifdi naftaadana xifdi anigoo ka socda Somali Digital Media Academy ardaydeeda in aan maanta wajiyadan quruxda badan aan la kulmo run ahaantii Guryasamo waan u mahad celinayaa marka hore magacaygu waa Qadar Axmed Biid run ahaantii sidii hore leedinku hordhici leedin siiyayba waxaan kamid ahaa gabdhihii ka imaaday qurbaha gaar ahaan qaliishkan ka imaaday oo aan ku noolaa muddo 12 sano ah kadib run ahaantii aniga waxaan aad u xiiseeyay waxay tahay journalismka iyo kaamirada iyo waxyaabahaas ayaan aad u xiiseeyaa haddii aad codkayga fahmaysid iga raali noqdo laanno aad uma jecli inaan ka hadlo dadka hortooda laakiin waxaan jeclaa dadka inaan duubo waxay ahayd xilligan imaanayay wadanka 2018 bishii 3 ayaan imaaday sababaha uu imaadayna waxay kamid ahayd waxaan joogay Saudi Arabia marka aan tago hoteelada qaar oo aroosyada ama xafladaha ay ka jiraan gabdhaha ay aroosayaan waxaan arki jiray gabdhaha duubeyso hoolkaas arooska uu ka dhacayo wax nin ah soo ma galayaan ama ha ahaado aroos ama xaflad qaas ha ahaato sababtay saas u sameynayaanna waa xeer iyo dhaqan ay dawladdu ay leedahay wadankaas ka jirta gabar iyo wiil inaysan meel ku kulmin run ahaantii waxay ahayd waxyaaba aan aad u jeclaystay in gabar aroosad ah uusan wiil duubeynin ama uusan hoolka dhan wiil soo galaynin mawduuca maanta uu daaran yahay barnaamijkan oo ah gabdhaha in la baro duubista kaamirada iyo weliba markii la duubo kadib sidii loo habeyn lahaa runtii waa fursad weyn oo gabdhaha dhowr jaanisba u siinaysa bay'ada iyo diintana wax badan ka bedelaysa marka koowaad gabdhuhu inay xirfaddan bartaan shakhsiyan waxay u tahay shaqo abuur waxay helaysaa xirfad ay ku shaqaysato oo xalaal ah waa marka labaad fitan badan oo aroosyada intooda badan ka dhalan jirtay oo ragga DJyada la yiraahdo ay mas'uul ahaayeenna meesha ay ka baxaysaa Guryasamo waxaan ugu mahad celinayaa barnaamijkan xasaasiga ah inay garatay waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo soo keenay makaankani oo aan rabno inaan ku horumarino nafteena waxaan mar kale u mahad celinayaa Guryasamo iyo teamkeeda sida wanaagsan ay ugu dadaalayaan fursadahana ay ugu furayaan hablaha Soomaaliyeed si ay u gaaraan isku filnaasho guud gabdhaha ducaada ah in ay noqdaan gabdho meel walba iskaga filan يعني waxaa laga dhaadhacsiyay gabadhu markay xijaab weyn tahay ma ku dadaali karto adduunyadeeda waxay ku egto kaliya maxaa lahaay xijaabkaasi weynna yani loo suurad xumeena marka si loogu suurad xumeenin yani gabadha xijaabka weyn wadato oo xijaabka saxda ah oo shuruudihii islaamka laga helo wadato gabadhaasi ayaa ah gabadha adduun iyo aakhiro horumarayso hawshan
Sodma iyo Guryasama ay ku dhawaaqeen oo ah in gabdhaha tababar la siiyo ku saabsan kaamirada iyo muuqaal samaynta xaqiiqatan waa fursad aad muhiim u ah in badanna waa lagu celceliyey oo ma rabo inaan ku sii dheeraado laakiin waxaan rabaa kaliya inaan dul istaago waxyaabaha gabdhaha ay ka caawin karto waxaa ka mid ah muuqaalka lagu siinaayo marka la duubo kadib lagu keenayo waa mid la soo taftiray maxaan ka wadnaa waxyaabihii khaladaadka oo dhan waa la jarjaray khaladaadkaas la jarjaray wuxuu u haray qofkii gacanta ku hayay muuqaalkaas sidoo doonan u isticmaali karaa waxaa laga yaabaa maanta markaad kaamirooyin noocankan aad ku baratiin macallimiin yacni aad yacni xirfad leh idin baraan inay idinka aad soo saartaan yacni wax wanaagsan oo la idinku faano intaas waxaan kaga gudbaa kelmad igaaga aadaneed inaan gabdhahaan u jeediyo oo ah marka ugu horreysa wax kasta aad qabanaysid oo xirfaddan aad ku baranaysid go-aan waxaad ku qaadataa inaad liwajhila aa u qabanaysid oo qof bani aadama xitaa allaha ka dhige Guryasamo oo alhabuurka laheyd Sodma oo fulinta laheyd allaha ka dhige aadan yacni abaalmarin aan kaga rabine dar alla aad u baratid isla dad alla aad u baranaysid aad dadkaaga dhibaataysan inaad ku taakulaysid wixii aad awoodid inaad doorkaaga soomaalinimo islaamnimo aad kaga qayb qaadatid farxad ayay noo tahay anaga ku hadlayna magaca Sodma inaan goobjoog ka ahaano fadhigan maanta oo lagu iclaamiyey in Sodma iyo Guryasama oo iskaashanaya ay fulin doonaan tababarkaasoo la siin doono dhowr gabdha oo ay ku baran doonaan xirfadda video operatingka ama camera operatingka akademiyaddu waxay soo saartay in ka badan 100 gabdhood oo ku shaqeysta maanta xirfadda camera operatingka gabdhahaasi qaarkood iyaga ku shaqeysta oo waxay leeyihiin xarumo oo duuba aroosyada kale qaarkood waxay ugu shaqeeyaan hay'adaha dawliga ah qaarkood waxay ugu shaqeeyaan hay'adaha NGOska